Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo hanjabaadii ugu cusleed jeediyey. Sidoo kale Iiraan oo dooratay hogaamiye ku meel gaar ah ayaan idiin soo gudbin doonaa xilli madaxweynaha Iiraan Masoud Pezeshkian uu hanjabaad culus hawada u mariyey Iiraan iyo Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka. Haddaba maxay tahay hanjabaadaasi? Muxuuse ka yiri geeridii markaasi Ayatollah Ali Khamenei? Sidoo kale Imaaraadka oo qaadanaya mowqif aad u culus oo markaasi mowqif dagaal ah oo ka dhana Iiraan, sababta ayaan idiin soo gudbin doonaa. Sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa maxay ahayd ama sidee markaasi loo khiyaanay madaxdii markaasi lagu dilay gudaha waddanka Iiraan oo uu ku jiro hogaamiyihii ugu sarreeyay ee ruuxiga ahaa Ayatollah Ali Khamenei. Haddaba khiyaanadaas loo degay ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo sida qaabka markaasi weerarka uu dhacay. Inta lagu dagaalayn marka koowaad soo dhow muuqaalkan like garee, sidoo kalena sii share garee si dad badan xogteena ay u gaarto. Iiraan ayaa waxaa si ku meel gaar ah ay markaasi u dooratay hogaamiye markaasi bedela ama markaasi booskiisa gala hogaamiyihii la dilay Ali Khamenei. Ayatollah Ali Reza Arafi ayaa si ku meel gaar ah loogu magacaabay inuu noqdo bedelka Ali Khamenei. Wuxuu hogaamin doonaa golaha sare ee ku meel gaarka ah ee maamulka Iiraan, kaas oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda garsoorka. Golahan wuxuu hogaamin doonaa Iiraan ilaa laga soo magacaabayo hogaamiye sare oo si rasmi ah u bedela Ali Khamenei, sida ay warisay wakaaladda wararka Iiraan ee Tasnim. Waagaag Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo goor dhoweyd qoraal baahiyey, waxa uu markaasi sheegay in maalmaha soo socda ay fulin doonaan weeraro aad u xoogan. Waxa uu yiri waxaan maalmaha soo socda fulin doonaa weeraro aan ku beegsanayno kumanaan bartilmaameed oo gudaha nidaamka Iiraan ah. Haddaba xilli Tel Aviv ay holcayso iyo sidoo kale magaalada Haifa ma cadda tallaabooyinka xiga ee Israa'iil ay qaadi doonto marka laga soo tago hanjabaadda culus ee Netanyahu markaasi goor dhoweyd uu jeediyey. Dhanka kale madaxweynaha Iiraan Masoud Pezeshkian oo ka hadlay dilkii Ali Khamenei, hogaamiyihii ugu sarreeyay markaasi Iiraan, waxa uu yiri dilka Khamenei waa ku dhawaaqis dagaal ka dhan ah muslimiinta Shiicada, argoosigiisana waa xuquuq sharci ah, ayuu yiri, xilli hogaanka ilaalada kacaanka ay si cad markaasi u sheegeen in ay u aari doonaan Ayatollah Ali Khamenei isla markaana weeraro culus ay geysan doonaan. Sidoo kale Imaaraadka ayaa la filayaa in markaasi uu qaato mowqif dagaal oo aad u xoogan xilli magaalada markaasi Abu Dhabi ay gubanayso, isla markaana gantaallo ay la beegsadeen goobo muhiim ah oo ay ku jiraan goobo dalxiis markaasi dowladda Iiraan ay la beegsatay. Imaaraadka Carabta waxaa laga yaabaa in uu qaato marka mowqif dagaal oo ka dhana Iiraan haddii ay Iiraan markaasi ay sii wado, ayaa la yiri, weerarada gantaalada iyo diyaaradaha ay markaasi la beegsanayso gudaha magaalooyinka Dubai iyo sidoo kale Abu Dhabi. Sida ay CNN markaasi u sheegtay wasiiru dowlaha iskaashiga caalamiga ah Imaaraadka Carabta, waxaan diyaar u nahay tiri in aan isdifaacno. Waxaan rajaynaynaa in arrintan halkaasi aysan gaarin, balse ma aamusnaan doono annagoo markaasi nagu socdaan weeraro sidan oo kale ah, ay tiri Reem oo ah markaasi wasiirka Iiraan ee wasiiru dowlaha iskaashiga caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta. Sidoo kale waxa markaasi mar la weydiiyey in Imaaraadku uu qaadan karo mowqif dagaal oo markaasi adag, waxa ay ku jawaabtay haddii ay qasab noqoto waan qaadi doonaa. Waxay intaasi ku dartay hadda go'aanku waxa uu ku jiraa gacanta Iiraan si ay u muujiso sida ay ula dhaqmayso dal daris ah oo muddo dheer si cadaalad iyo wanaag leh ula macaamilay. Wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadka ayaa hore u sheegtay in Iiraan ay ku soo weerartay gudaha Imaaraadka Carabta ugu yaraan 137 gantaal oo balaastig ah iyo 209 oo diyaaradaha markaasi nooca aan duuliyaha lahayn. Dhammaan arrimahan marka waxa ay muujinayaan sida Imaaraadka Carabta uu u adkeysan layahay gantaalada iyo weerarada xoogan ee markaasi uga imaanayo dhinaca magaalada Tehran. Wali waxaan ku guda jirnaa wararkii isla bariga dhexe, sidee loo khiyaanay ama markaasi kaartada lagu dilay hogaamiyihii ugu sarreeyay golaha kacaanka Iiraan markaasi Ayatollah Ali Khamenei. Hogaamiyahan ayaa lagu soo warramayaa in isaga iyo sidoo kale xubno kale oo muhiim ah oo uu ku jiray taliyihii ugu sarreeyay ilaalada kacaanka in shir markaasi degdega ay ku lahaayeen xafiiskiisa, isla markaana aysan
ku markaasi u diyaar garoobin wax dagaal ah oo subaxnimadii hore ee Sabtida lagu qaadi lahaa. Dagaal waa ay filayeen oo mar kastaba dagaal way u joogeen, laakiin waxay filayeen in habeen markaasi la soo weerari doono oo maalin Sabti ah waliba niska hore wax dagaal ah maysa filaynin. Waa sababta Iiraan marka nimankan filashado waa iraahda Mareykanka nimankan filashadooda oo markaasi u daba maray isla markaana isaga iyo Israa'iil maadaama sirdoon aad u xoogan ay ku dhex leeyihiin gudaha Iiraan nimankan Israa'iiliyiinta ah ay u sahashay in ay helaan xogta markaasi kulankaasi muhiimka ahaa isla markaana in ka badan 40 bambaano lala eegtay goobtii shirka uu ku socday taasoo markaasi sababtay in wax ka badbaaday aysan markaa jirin. weli waxaan ku guda jirnaa wararkii isla bariga dhexe iyo macluumaadiyadii ugu dambeeyay weli waxaa holcayo qaybo ka mid ah wadamada khaliijka xilli Djibouti ay markaasi feejignaan dheeraada ay gashay kadib markii taliskii ugu weynaa Afrika markaasi ciidamada Mareykanka ee Africom markaasi heega sare la geliyay isla markaana laga cabsi qaba in saacadaha ay soo aadan gantaalo ay markaasi halka gaaraan oo ka imaanaya gudaha magaalada Tehran maadaama dawladda Iiraan ay ku dhawaaqday argoos isla markaana ay bartilmaameedsanayso goob kasta iyo meel kasta oo markaasi Mareykanka uu ku leeyahay saldhigyo military. Waxa markaasi wali soconaya hanjabaadaha labada dhinac ay markaasi isweydaarsanayaan xilli banaanbaxyo rabshado wato ay ka dhaceen wadamada Pakistan iyo sidoo kale Iraq kuwaas oo markaa lagu weeraray xarumo ay markaasi ay leeyihiin ama safaaradaha ay ku leeyihiin wadamadaas Mareykanka uu ku leeyahay. waxa xogtii ugu dambeysay ay markaasi ay hadda ay tilmaamaysaa in Iiraan ay markaasi weerartay sidoo kale wadanka Oman waa dalkii markaasi dhexdhexaadinta ka waday Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan waxayna arinta u muuqataa in sheeko ay faraha markaasi ay ka sii baxday meelaha duqeyntu ay ka socoto kaliya maaha wadamada khaliijka muuqaalo markaasi la baahiyay waxa ay muujinayaan in xitaa gudaha Tel Aviv ay markaasi holcayso isla markaana burbur xoogan uu markaasi halka uu ka wado war degdega oo hadda inta warbixintan aynu ku guuy jirnay in soo gaaray waxa uu tilmaamayaa in dawladda Soomaaliya ay cambaareyso weerarada ay dawladda Iiraan ku wado dalalka khaliijka Carabta gaar ahaan Sacuudiga, Bahrain, Urdun, Oman, Qatar iyo sidoo kale Kuwait. Xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Iiraan ku eedeysay in ay jabinayso xeerarka caalamiga ah isla markaana ay weerarayso dalal aan waxba u geysan. Soomaaliya ayaa ka aamustay weerarkii lagu qaaday Imaaraadka Carabta kaas oo ay ka reebtay in markaasi dhambaalka ay ku darto waa dalalka ay markaasi ka xumaatay weerarkii markaa lagu qaaday. haddaba waxa markaasi isa soo taraya baaqyada kala duwan markaasi ku aadan in Iiraan ay joojiso duqeynta ay markaasi ka geysanayso wadamada khaliijka halka Iiraanna ay ku andacootay in ay aargoosan doonto isla markaana aysan aqbali doonin in la weeraro isla markaana hoggaankoodii ugu sarreeyo la dilo isla markaana wadamada khaliijka ay nabad ku seexdaan. xaaladdu talo faraha way ka sii baxday waxaana markaasi xilli kasta la fili karaa in markaasi xaaladdu ay sii adkaato isla markaana weeraradu ay sii socdaan. warar degdeg ah ayaa soo taraya Iiraan waxa ay sidoo kale weerartay san hadda xogta ay nagu soo gaarayso markab maraya gacanka Oman aaga Hormuz waxaana la arkay markabka oo markaasi dab uu ka baxayo lama hayo wax faahfaahina oo intaasi ka baxsan wixii ka soo kordho waxaad ku daawan doontaan hadduu eebba idmo wararkeena xigo daawadayaal. haddaad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan like garee muuqaalkan sidoo kalena sii share garee si dad badan xogteena ay u gaarto.